rabbi ighfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab maxaa ku xiga fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi ruqaa'an xaysu asaab markiiba ilaahay waan aqbalay buuhi ducadiisii mulkiga adduunka o dhan baa gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulki weliba isaga dabadii cid dambana aanu qalmayn ayaa ilaahay iyuu yidhi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yidhi markiiba wuxuu yidhi waan ka aqbalno ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegii buu maqlay dabeelaha loo sakhiray jinka iyo shayaaiinta iyo cafaariidda ayaa gacantiisa ilaahay soo geliyey oo amarkiisay badaha intay ku galaan jawaahirta ee dhammankay u soo saarayeen aqaladay u dhisayeen wadooyinkay samaynayeen waxali wuxuu u baahdo o dhan nabi sulaymaan jinka iyo shayaaiintu u diraayey waxali waxa shimbire iyo hawada duul oo dhanna korkiisay sidaa u socon jireen waxushira lisulaymaana junuudahu min aljini walinsi waاطayr fahum yuzacuun xata ida atw calى waadi الnml qaalat namlaة ya ayuha الnml اdkhuluu masaakinakum laa yaxطimanakum sulaymaan wajunuuduhu whm laa yashcuruun fatabasma ضaaxika min qowliha waqaala rabi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wclى waalidaya waan acmala صaalixا tarضaah waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika الصaalixiin waa ka ku ducaystay ducadaas mulkigii caalamkao dhan ilaahay intuu soo qaaday ayaa ilaahay nebi sulaymaan gacanta ka geliyey bilaa shuruud wax shuruuda laguma xidhin markaasaa ilaahay yidhi haadaa caطaa'una tani waa deeqdayadii famnun aw amsik bigayri xisaab haddaad doonto galladayso oo ciddaad doonto ku galladayso oo sii haddaad doonto hayse baa lagu yidhi waxba lagaa weydiin maayo tan laguguma xisaabin maayoba tan waa adduunyo laakiin qisadii nebi ibraahim calayhi salaam dhagayso waa nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay jala wacala weliba dacwadda imtixaan buu u soo maray markuu weydiistay ilaahay jala wacalaa in loo ziyaadiyo iimaankiisa in macrifada rabbigii ay u korodha markuu weydiistay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii maxaa ku xigta qaala fakhud arbacata min aلطayr shuruud baa yaa la hordhigay isaga 4 shimbirood la kaalay baa lagu yidhi haddaad doonayso iimaanka inaan kuu ziyaadino macrifada rabbiga inay kuu korodha haddaad doonaysid 4 shimbirood soo qabo mustaciduun diyaar mawtiinde ya halkaan u socda waad fahamteen soo maha fakhud 4 min aلطayr 4 shimbirood soo qabaa laga yidhi cilm alyaqiin uu leeyahay laakiin wuxuu rabaa cayn lyaqiin inuu arko cilm alyaqiin uu leeyahay awalam tu'min baa lagu yidhi maad rumayn waxaa dhintay saanu soo noolayno miyaanad rumaysnayn inaan soo saari karno inaan abuuri karno mar kale inaan noolayn karno qaala balaa may waan rumaysanahay buu hi taa rabbigayo walaakin liyaطma'ina qalbii waxaan rabaa in qalbigayga iimaanka iyo macrifadaadu ay sii biyo dhigto min darajati cilm alyaqiin ilaa darajati cayn alyaqiin inaan arkaan rabaaba shaygii oo la samaynay inaan arkaan rabaa waa hagaaga 4 shimbirood la kaalay baa lagu yidhi waa shardigaas oday da'weyn weliba 4 shimbirood oo weliba aan isku nuuc ahayn bay culammadu yidhahdeen oo kala nuuc ah oo mid walba wadan gooniya meel gooniya laga soo qabanayo oday da'weyn soo qabashadeedu may u fududahay mise u dhib yar tahay mise ku adag tahay maxaa loo sheegay qisadan xikmadaha qur-aanka allah ina fahamsiiyo qur-aanka waa inaan tadabbur ku akrinaa moogtahay waxaa laynoo sheegayaa sulaymaan oo adduunyadoo dhan ilaahay weydiistayna
بلا شروط بالغوسي وايو ادويدو قيمه ما له لكن ابراهيم wax qiimo lu weydiistay ka dhigan tahay shuruud ba ku xidhnay isaga diintu qiimo leedahay shayga qiimaha la waxa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la had gashatid odayba inankiisu ku yiri aba inta oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta kun shilin aba ii keen bukire kun shilin didid kaaga raba inaan cunay ku yaro ciyaal magaalo waligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uu ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaas uu tagay baa leeyahay hooyadii buu koray hooyo kun shilin siiyo maxaad ka dhigayo ana u baahan hooyaysi way siisay odagii aabihii buu u geeyay intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabo waa tan lacagtii hoo oo ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kun shilin ku tuuray odagii markaas waliba inankiisiiba hoosta ka yareego saas u eegay markaas haddana 10 maalmood kadib uu ka yiri bal bari toolana waan kun shilin aaba waan ka rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqada aaba taqaanaa kun shilin keen hooyadii buu ku yiri wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay oo aan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno oo ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray keenay bul maalin muddo kadib uu haddana yiri bal maanta aabo fariid baaba noqotay oo tago ay ku shilin siiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysa way runta ma ku sheegaa aabba igu yiri ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagan marka u geeya kun shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallahi dab hortiisa ka baxayo uu ku tuuray isaguna markaas ay ku tiri war lacag la gubo anigu ma haye hor magaalada u gal odayga waa midaal yani midaal hatta tafhamu وشغل تجي ضد مركا وحركة ما نقل لسه يبغى أركي ورستو مالنتي مسات صوش قيساي وعين قاسو وكل شيء لأنه والله شغل تجو وهذا وحول حول سوق بني بوسوق قبتي لعقتي هوري لعقت المسكو قيمة مركا وكان وذاقين أبو هو مركاسو ويقول لي هذا البراعي ويقول أبو لعقت الضبكة كاي لا لده النبي صلى الله عليه وسلم markaas uu yiri oo maxaa ku jaban buu hadaan ku tuura kuwii horeba sooniga gubayay ma yaaba tantii hore way ka duwan tahay tan waa dhidid baa ku baxay buu waxaan u soo qaatay misalkaas shaygan marka uu maal iyo waqti iyo aqli iyo dadaal iyo ragnimo ay ka gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga la fahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal